maxaad ka og tahay taariikhda qarsoon ee CIA-da? CIA-du ma ahan hay-ad sirdoon oo keliya, waa quwad ka awood badan dowlado badan. Tan iyo markii la aasaasay waxay ka howlgaleen meel ka baxsan sharciga, iyagoo isticmaalaya lacag aan la raadraaci karin iyo hub qarsoon. Wax kasta oo ay sameeyaan waxay ku dhowraan magaca amniga qaranka. Laakiin arrinku sidaa miya? Maanta waxaan dhexgelaynaa taariikhda madow ee CIA-da. Sanadkii 1947 Mareykanku wuxuu dareemay cabsi weyn. Midowgii Sofiyeeti ayaa dunida ku fidinayay nidaam shuuciyada. Madaxweyne Harry Truman ayaa ansixiyay sharciga amniga si loo dhiso CIA. Ujeedadu waxay ahayd in xogta dunida laga soo ururiyo oo madaxweynaha la siiyo. Laakiin degdeg ayayba u xuubsideen. Waxay bilaabeen inay tababaraan ciidamo qarsoodi ah, inay iibsadaan saxafiyiin iyo inay sameeyaan doorashooyinka dalalka shisheeye si ay u fashiliyaan Ruushka. Sidee bay CIA-du u maalgelisaa howlgallada aysan rabin in baarlamaanka ogaado? Waxay isticmaalaan wax loo yaqaano black budget oo ah lacagta madow. Halkee buu ka soo bilowday? Marshall Plan, lacagtii looga talagalay in Yurub dib loogu dhiso dagaalka kadib. CIA-du waxay ka xadi jirtay qayb ka mid ah si ay u dumiyaan kooxaha ka soo horjeeda. Waxay lahaayeen shirkado diyaaradeed iyo kuwa ganacsi oo u gaar ah oo lacagta u soo dhaweeya. Waa lacag balaayiin dollar ah oo aan marnaba lagu arkin diiwaanka rasmiga ah ee dowladda. Si CIA-du u qabato howlgalla ka baxsan sharciga, waxay u baahneed lacag aan la raadraaci karin. Halkan ayay ka bilaabatay sheekadu. Sidee bay ku dhalatay lacagta madow ama black budget? Markii CIA-du la aasaasay ma jirin miisaaniyad weyn oo loo qoondeeyay howlgallada qarsooniga ah, laakiin waxay heleen waddo ay lacag ku heli karaan. Waddadii ugu horreysay ay qaadeen waxay ahayd Marshall Plan. Mareykanku wuxuu bixiyey balaayiin dollaris si Yurub dib loogu dhiso dagaalkii labaad kadib. CIA-du waxay si qarsoodi ah u goosatay qayb ka mid ah lacagtaasi si ay u maalgeliso saaxiibadeeda siyaasadda ee Yurub iyo inay ku dhisato shabakado sirdoon. Sharcigii CIA-da ee 1949 baarlamaanka Mareykanka ayaa ansixiyey sharci u ogolaanaya CIA-da inay lacagta u isticmaasho si qarsoodi ah, iyagoo aan laga rabin inay faahfaahin ka bixiyaan halka ay ku baxday lacagtaasi. Tani waxay dhalisay wax loo yaqaano black budget ama lacagta madow oo ah malaayiin ama balaayiin dollaris oo aan marnaba lagu arkin diiwaanka dowladda. Wixii ugu horreeyay ee ku qabatay waxay ahayd afgembigii Iiraan. Tani waa halkii ay CIA-du ku tijaabisay awoodda lacagta madow. Ra'iisul wasaarihii Iiraan Mohammad Mossadegh wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisu jecel yahay. Wuxuu go'aansaday inuu dowladeeyo shirkadii saliidda ee Ingiriiska uu lahaa si dakhliga saliidda loogu dhiso Iiraan. Ingiriiska oo arrintaasi ka caraysan ayaa ka codsaday CIA-du inay ka caawiso sidii ninkaasi xukunka loogu ridi lahaa. Waxay sameeyeen qorshe ay ugu magac direen Operation Ajax. CIA-du waxay u dirtay Iiraan sarkaalkooda weyn ee lagu magacaabo Kermit Roosevelt oo ahaa wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee Mareykanka. Wuxuu sitay boorsooyin ay ka buuxaan lacag kaash ah. CIA-du waxay lacag siisay hogaamiyaasha kooxaha burcada ah si ay u sameeyaan banaanbaxyo rabshado wato. Waxay lacag siiyeen wargeysyada iyo idaacadaha si ay Mossadegh ugu tilmaamaan shuuci iyo cadow diineed. Waxay laaluusheen saraakiil muhiim ah oo ka tirsan ciidanka Iiraan si ay u xiraan Mossadegh. Mossadegh waa la xiray, waxaana xukunka si buuxda ah loogu wareejiyey Shah Mohammad Reza Pahlavi oo ah boqorkii Iiraan, kaasoo ahaa saaxiibka dhow ee Mareykanka danahooda u fuliya una adeega. Inkasta oo CIA-du u aragtay arrinkaasi guul weyn, haddana waxay abuurtay ciil weyn oo ay shacabka Iiraan u qaadeen Mareykanka. Ciilkaasi wuxuu dilaacay 1979 kacdoonkii islaamiga ahaa ee Iiraan, markaasi oo Mareykanka loogu magac daray shaydaankii weynaa. CIA-du markii ay ka guuleysatay Iiraan 1953 waxay rumaysteen in ay dumin karaan dowlad kasta oo aan u hoggaansamin amarka Mareykanka. Waxay dejiyeen qorshe la mid ah buuq ciyaareed oo ay mar kastaba isticmaalaan. Waxaa xigay Operation BB Success oo Guatemala 1954 ka dhacay. Madaxweynihii Guatemala Jacob Arbenez wuxuu rabay inuu dhulka dalkiisa dib u qaybiyo. Wuxuu dhul bannaan oo ay lahayd shirkadda Mareykanka ee United Fruit Company ka qaaday si uu u siiyo beeraleyda masaakiinta ah. CIA-du maxay samaysay? Waxay bilowday olole dacaayad ah iyagoo Arbenez ku tilmaamay shuuci. Waxay tababareen ciidamo falaaga ah oo aad tiradoodu u yar tahay. Waxayna ka dhex bilaabeen Guatemala idaacado been abuur ah oo sheegaya in ciidan weyn ay dalka ku soo duuleen. Arbenez waa uu cararay cabsi daraadeeda. CIA-duna waxay keentay keligii talis u adeega danahooda. Tani waxay dalkaasi ka dhalisay dagaal sokeeye oo socday 36 sano, kuna dhinteen in ka badan 200 oo kun oo qofood. Marka ku guuleysteen waxa uu xigay Cuba 1961 oo ay doonayeen inay afgembi xilka kaga tuuraan Fidel Castro. Kadib markii Fidel Castro uu la wareegay Cuba, CIA-du waxay go'aansatay inay ridaan. Waxay tababareen in ka badan 1400 oo qofood oo reer Cuba ah. Qorshuhu wuxuu ahaa inay Cuba ku duulaan, shacabkuna ay kacdoon sameeyaan. Castro waa uu ogaaday qorshaha. Ciidankii CIA-du tababartay qaar wuu laayay, qaarna wuu xirxiray muddo 3 maalmood gudahood. Tani waxay dhabar jab weyn ku ahayd CIA-da iyo madaxweyne Kennedy. Waxaa xigay
sheegay project MK Ultra wax la yiraahdo inay fuliyeen CIA-du waa dagaalka maskaxda haddii afgembigu uu ahaa mid siyaasadeed MK Ultra wuxuu ahaa mid cilmi baaris cabsi leh ama naxdin leh CIA-du waxay ka baqaysay in Ruushka iyo Shiinuhuba ay helaan hab ay maskaxda uga dhaqaan askarta Mareykanka ee la qabto markaas ayay go'aansadeen inay iyaguna dadka tijaabiyaan waa maxay MK Ultra waa barnaamij qarsoodi ah oo socday 1953 ilaa 1973 ujeedadu waxay ahayd in laga helo hab qofka maskaxdiisa lagu maamuli karo runta looga soo saari karo ama xasuustiisaba lagu tirtiri karo sidee bay u fuliyaan waxay adeegsadaan daroogooyin jirdil iyo wixii la mid ah waxay isticmaaleen daroogada LSD iyo daroogooyin kale oo maskaxda bedela waxay siin jireen dadka aanan ka warqabin arkaanada isbitaalada maxaabiista iyo xitaa shaqaalahooda CIA-da waxay adeegsan jireen jirdil maskaxeed waxay dadka ku ridi jireen xaalad go'doon ah waxayna u isticmaali jireen koronto si ay maskaxda ugu bedelaan dad badan ayaa maskaxda ka waashay qaar kalena way isdileen ama waxay u dhiman jireen jirdilkaasi dartiisa sidee baa loo ogaaday sanadkii 1973 agaasimihii CIA-da ee markaasi waxaa la dhihi jiray Richard Helms wuxuu amray in la gubo dhammaan waraaqadaha MK Ultra laakiin 1977 waxaa la helay 20,000 oo warqadood oo si qalad ah loogu xareeyay meel kale halkaasi ayay sirtii ku dilaacday laguna ogaaday wixii ay samayn jireen waxa uu xigay mashruuca loogu magac daray Vietnam Phonics Program dagaalkii Vietnam CIA-du waxay fulisay barnaamij ay ugu magac dartay Phoenix waxay liis ku qorteen dadka ay u maleynayaan inay ka soo horjeedaan Mareykanka waxay laayeen ama dileen in ka badan 20,000 oo qofood kumanaan kale ayaa lagu jirdilay xabsiyo qarsoodi ah waxay ahayd markii ugu horeysay oo si nidaamsan loo isticmaalo dilalka qorsheysan ama waxa lagu magacaabo assassinations waxa uu xigay fadeexadii Iran Contra 8 tani waxay ahayd fadeexadii ruuxday Mareykanka CIA-du waxay si qarsoodi ah hub ugu iibisay Iran oo markaasi cadow la ahayd lacagtii hubkaasi ka soo baxday waxay si qarsoodi ah u siiyeen koox lagu magacaabo Contras ee ka dhisan dalkaasi si ugu dagaalamaan ama ula dagaalaan dawladda dalkaasi ka dhisan waxa intaas dheeraa in CIA-du lagu eedeeyay inay fududeeyeen in daroogada kokiinka ay soo gasho Mareykanka si lacag looga helo dalkaasi dagaalka argagixisada iyo xabsiyada qarsoon waa barnaamij kale oo ay CIA-du aasaastay wixii ka dambeeyay 11 September CIA-du waxay dunida ka sameysay xabsiyo loo yaqaan black sites dadka laga shakiyo ayaa laga afduuban jiray dalalkooda waxaana la geyn jiray xabsiyo aan cidnaba ka warqabin sida Thailand ama Poland si loogu jirdilo hababka ugu xun hadda wala joogo waxay adeegsadaan drones iyo AI maanta CIA-du gacanta uma isticmaasho mindi ama bastoolad oo kaliya si ay qof u dilaan waxay isticmaalaan drones waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay fadhiyaan xafiiskooda oo ku yaala Mareykanka waxay riixaan kaliya badhan si ay u dilaan qof u jira kumanaan mayl waxa kale oo ay iskaashi la leeyihiin shirkadda Palantir taas oo u soo ururisa xogta internetka si ay u ogaadaan qof kasta waxa uu ku fikirayo ka hor inta uusan ficil sameeynin haddaba ugu dambeyn CIA-du waa hay'ad ku dhalatay dhiig kuna kortay sir inkasta oo ay sheegaan inay ilaaliyaan xorriyadda taariikhdu ayaa tilmaamaysa muujinaysa inay dumiyeen dawlado badan ayna ka dambeeyaan dhibaatooyin dunida ka taagan su'aashu waxay tahay miyay suurtagal tahay in la xakameeyo hay'ad sirteedaba ay ka weyn tahay dawladda laftarkeeda halkaasi waxa inooga eg barnaamijkii aan ka diyaarinay CIA-da mahadsanidin